وعن حالي داوني مصبيحي وتيفيا كهلايا نباوي حلولي ما تيجي أنت ذي أيا ولا بقى يراري موصل وكهلاي حسبي وطني أو كونفور أي سكان صورنا وين نقعد نوصل كان موسى واحد ما أنت إنك يا رنتا كهاد لا مو هاي وأنا كم عنك أقول بحي برجي فترات كي على شيء يا الكاخير يلا يلي أنا أقول حدير كرت العقد المايو موسى مركي غير كان الحدث كلاي ميدان كسياسي دي سوي مثلا وحي كان نقطة إنه كان فرصة هذا القاضي على هاي سو كي هورين ولا يحبك الجارين ولا بدحلني ما كدونية ما تعد موسى يسمع علينا يو أنا هذه هذا ويا وعوي لبلا برنامج أبدا قلب إنك الله يا وحي من الوقت حلا ميديا ولا تجنا موسى بيح عبدي وح أبارو لنا نبويا لا مركب وجوه رئيس ما بيجي تنوع أنا مع بيش في رهابتي البي نوعك كدونيو وعكوير كلفه وحيابها مرمرانية ملع عضاد يضد كسبة يا كلفه وحيابه وحلا كهلاي والرئيس البرلمان كي جمهورية الصومال لان وسري من الحوين الله تياتر هاي قدومية محكمة السرعي وحلا لها حسبي كلمية ضمن محكمة دولة تيكسر شرع قالوا تيكسرنا waxaan maleenayaa yacni waxyaabaha ee qaladaadka waddanka ka jiray waxyaabaha aan u fiirsanayeen bay kamid isagoo yacni dheerdhalad oo maalintii dhawatay systemkii wax loogu wareejiyay macaanganaya madaxweyne siirayo uu ku mahadsanaa waliba inuu kii madaxa u geliyo isma ogeyn ayuu yacni ku hanjabay haddana ra'iisul baarlamaanka maxkamadda la tiigsanay waa riyaad u fool xufili haddii la daawado hore loogu 22 sanadood baa ka soo wareegay waqtigu Muuse laha calanka ka taagay misjaamaca agteeda maanta reeru ciidan meel u jooga ma jirto oo leeyahay Malaysia ka dambeysay barnaamij noocaas ninka Soomaaliland dadka eeganaya lagu laayay 7,000 qof laga dilay war heerka garxajis leeyahay Soomaaliya doonaya ahad Soomaaliya soo hadal qaadi kara ma shirka Turkiga inta soo hadal qaada anagu nimanka eeganaya baan wax kala badaayo nin Soomaaliland iyo federaal buu doonayay waxa harsanaatay ninka soo hadal qaada annaka ba eeganayno 7,000 nin baan naga maqan 3 sanood 29 bilood ayuu Muuse Biixi ku hor joogay inuu Hargeysa ka ilaaliyo dadka wuxuu hatariya wasiirka amniga iyo taliya guud ee ciidamada qaranka ee Soomaaliland ayuu Muuse Biixi Cabdi ahaa reerku imaka abtisado kamuu daba tagay sida ragga barkii ka daba tagayna kaahin iyo Ibraahim Dhagaweyne iyo shirar badan bay qabteen nabad dib waddanka ugu dhacday waa ku guursaday Cabdullaahi Darawaliyo isaga wax abaalo u yaala waxaan dhacaya ama hadaladan dhiifta la soconaya waxay weegi wixii ay waqti hore soo maray ama haday noqoto arinta nabadgelyo darrada ah ee la sameeyo dadkan la target gareynayo ee la bureynayo waxyaabaha soconaya waxay weegihiin waqtiyada qaar kood wixina soo maray waxaynu u baahanahay inaynu bulshada ka dhaadhicino aynu u sheegno in dadkan ay u baahan yihiin nabadgelyo u baahanahay nabadgelyadana cidna laga bari maayo nabadgelyo dadku u baahan yahay waxa la doonayaa nabad in lagu wada noolaado baan kula doorashadu ay nabadgelyo inoogu dhacdo waxa la doonayaa in hadalkan dhiifta la shubayo iyo waxyaabahan la isku xoqayo iyo waxaan hore inoo soo maray inaan lagu celcelin waxay u egtahay maanta in caroog la garaacayo in dalkan dagaal sukeeyo ka dhaco wax suurta galiyana maaha dadkuna way ka korreeyeen waxa maanta bulshada waxaan ku wacyigelinayna inaan halkan federaal laga dhawaaqi karin Soomaaliland qof diidanina tan aanu dhex joogi karin baan ayaa dadka u sheegayna ninka waxa siyaasad ka dhiganaya isaga u taala cidda iyadu political ka dhiganaysa iyada u taala siyaasad ka dhiganaysa haddii Soomaali la kulmayo laga hadlayo dee Turkiga oo madaxweynayaashu ku kulmayaan waxa laga wada hadlayaa dee waa heshiis iyo la wada gelayo Soomaaliland iyo Soomaaliya si wada noolaan baa ayaa laga fikiray qofkii qof isla taagay iyo sawir been abuur iyo verification hadii la sameeyana dibteedii ceebteedii leed marka waxaan leeyahay si xaraga leh loo dagaalamo si xaraga leh loo wada hadlo yani waxaan la sheegay waa la doogayay la tacaroon si gobonnimo leh in loo tartamaba qurux badan oo aan dhiif lahayn ayaa qurux badan maanta qofka isagu siyaasad ka dhiganaya ama reernimo ama tolaay de isaga u taalaaba ku reernimo waxba lagu heli maayo ninka reernimo wadani ku caroogaana waxba ku heli maayo reernimo meel ku gaarsiin mayso ninka kulmiye maanta reernimo wax ku abaabulayaan isla meel ku gaari maayo waxaynu u baahanahay in meel looga soo wada jeedo nabadgelyada waa hadii la doonayo Soomaaliland inay sii jirto